السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنالك مركز السود وهذا أديادا ومهتنتهين مانتا وأربعة وأنا سدحي طبعا كبيش الشناد ماي سنة كلابدا كن إيه اللحية لباتنك مقال كان وحربا إن ندكول وداغو ويليش مدحوين ترام أو داد فربضان أو شعب كمريكان كهالعكا قاتي سنة كي هوري إسلامر كان يري تليفون أيان سو سارينا ترام موبيل يرادو إسلامر كان إلا إيا حد وقتك إيا قبسدين لدافي lacagtiina dadkii aan u soo celin taleefankiina ilaa ay hadda website-ka uu leeyahay maba laga yaabo in la helo arrintaasi sidee ku dhacday ayaan idinla wadaagayaa qaar ka mid ah dadkii lacagta laga qaatay oo careysan oo dhahaya war taleefankiina siiya ama lacagteennii noo soo celiya ayaan idinla wadaagayaa madaxweyne Trump waxa uu gaaray magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha halkaasi oo wafdi fara badan oo ganacsato ay ku jiraan iyo dad maalqabeena ah ay la kulmi doonaan madaxweynaha wadankaasi Shiinaha Xi Jinping iyo waliba ganacsatada wadankaasi waxyaabo fara badan ayaa laga wada hadli doonaa sidoo kalena sirdoonka Mareykanka ayaa waxa uu leeyahay Iran hadda waxa ay haysataa awoodii gantaalada oo gantaaladeedii maba la baabi'in isla markaana sidoo kale shalay waxa soo baxday in dawladda Pakistan oo Mareykanka iyo Iran dhexdhexaadinaysa ayba wadankeeda geysay qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Iran arrintaasi xubnaha u dhow madaxweynaha waxay leeyihiin war wada hadalladu waxayba la socon leeyihiin wax Pakistan waxayba la jirtaa Iran waa in dhexdhexaadinta laga wareejiyaa oo wadan kale loo wareejiyaa arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada bishii June ee sanadkii 2025 ayaa wiilasha madaxweynaha Don Jr iyo waliba Eric Trump waxa ay ku dhawaaqeen in ururka Trump Organization ay sameyn doonaan ay soo saari doonaan mobile loogu magac daray Trump Mobile amaba T1 mobilekaasi oo dhinaca dambe calanka Mareykanka uu ku dhagan yahay isla markaana Make America Great oo halku dhigi madaxweyne Trump uu ku qoran yahay ayaa waxa ay sheegeen in dadka looga iibin doono $499 isla markaana bishii ay iska bixin doonaan sida shirkadaha caadigaba $47.45 47 waa madaxweynihii 47aad ee Mareykanka oo hadda Trump ah iyo madaxweynihii 45aad uu soo noqday ayaa lagu saleeyay marka dadka waxa la yiri waa inaad $100 sii diibtaan oo deposit ah si taleefanku marka uu soo baxana $399 ee kale ee harsan aad u bixisaan marka 600 oo kun oo qof ayaa waxa ay bixiyeen lacag $100 lacagtaas xisaabta marka la isku dhufto 60 milyan oo dollar ayay noqonaysaa marka dadka qaar ayaa 4 telefoon dalbaday qaar ayaa 3 dalbaday qaar ayaa 2 dalbaday laakiin waxaan ka soo qaadaynaa hadda 600 oo kun oo qof oo min $100 deposit dhigtay waa 60 milyan oo dollarka Mareykanka website-ka marka waxa ku qornaa in telefoonkan lagu dhisaan gareeyay Mareykankana lagu sameynayo sidaan ognahay laborka ama shaqaalaha Mareykanka gudihiisa markay ka shaqeynayaan waa qaali hadda xitaa telefoonkan iPhone-ka shirkadda Apple Shiinaha ay ku soo sameeysaa raqiis kadibna dadka Mareykanka lacag aad u fara badan oo qaali ah ayaa looga iibiyaa marka arrintaasi suuragal ma aysan ahayn in telefoonka lagu dhisaan gareeyo Mareykanka gudihiisana lagu soo saaro marka dadka waxa loo qabtay markii bishii June ee sanadkii hore ay ku dhawaaqeen wiilasha madaxweynaha telefoonkaasi inuu soo baxayo bishii 8aad in dadka ay telefoonada heli doonaan oo uu soo bixi doono bishii 8aad waa la gaaray telefoonkii lama hayo haddana waxa la yiri bisha 9aad hal la sugo haddana lama hayo November 13 sanadkii hore ayaa loo qabtay haddana lama hayo January ayaa dadkii loo qabtay sanadkan oo ku jirno lama hayo marka hadda May ayaa la maraya wilina telefoonkii lama hayo website-ka marka xitaa waxa isbedelay design-kii iyo qaabkii telefoonka markii hore kamaradiisu sidan ayuu u ekeed 3 gees sida iPhone-ka oo kale laakiin hadda Android ahaan ayaa laga dhigay online ayaa laga dhigay kamaradii sidoo kalena website-ka markii hore waxa ku qoran waxa lagu dhisaan gareeyay telefoonkan Mareykanka ayaana lagu sameynaya laakiin hadda sameyntii meeshii waa laga saaray oo website-ka waxa ku qoran waxaan ku faraxsanahay ama ku faanaynaa in Mareykanka telefoonkan lagu dhisaan gareeyay marka
dadka aad ayay u careysan yihiin waxay leeyihiin lacagteeni waa nala ka qaatay taleefankiina ilaa ay hadda gacanta kuma hayno marka wiilasha madaxweynuhu ma 600,000 dad ka badan oo shacabka Mareykanka ayay khiyaaneen qofkan waxa uu kamid yahay dadkii lacagta bixiyay waxa uu leeyahay 4 taleefan ayaan dalbaday marka ama 4teedii taleefan hal la isiyo ama 4teedii boqol hal la ii soo celiyo bal ninkan wax yar ila daawada sida uu careysan yahay oo uu hadlayo. Hey, Trump supporter here. This goes out to Don Jr. and Eric. Where the my phone? I ordered 4 gold Trump phones in the summer. Told they're going to be the best. Talked my son into ordering some. We heard they're going to come out in September. Yeah, we can wait. September rolls around. No, it's going to be November. November, no, it's going to be the end of the year. They actually stopped taking orders for them in November. Now we can't get any updates on them. Give me my phones or give me my money back. sidoo kale wariyahan oo telefishinka NBC ka tirsan isaguna waxa uu kamid ahaa dadka doonayay bal inay arkaan taleefankan in Mareykanka lagu sameyn karo Mareykanka gudihiisana lagu soo saari karo isaguna $100 ayuu dhigtay bal waxa uu ka warbixinayaa markii uu la xiriiray customer service-ka isla markaana uu la hadlay waxa ay ku yiraahdeen isagoo dhahaya ma muuqata in taleefankaasi uu soo socdo Brian Chang ayaa la yiraahdaa bal wax yar ila daawada NBC ayuu ka tirsan yahay. Well, look, it's been almost a year now that we've been waiting for this phone. It was announced by the president's sons in a flashy Trump Tower announcement in June of last year. They said that this gold phone, which had an American flag on the back bearing their father's name, was going to be released to customers in August at a price point of only $499. And that seemed almost too good to be true, especially when you consider they were saying it was going to be made in the United States. So for that reason, we put down a $100 deposit, and August came and went, September came and went. At one point, we were promised a November 13th date. They were even telling me it would take 7 to 10 days to get shipped to me. I was ready to do the review, and then November came and went, December came and went, and here we are in May of 2026, and there appears to be no sign of it. I did reach out to customer service just today before we did this segment, and they told me there was no timeline that they could even offer right now. Of course, this has offered a lot of questions over whether or not this phone actually exists, and I want to point out the goalposts have moved on this as well. In addition to the phone originally being branded as made in the USA, the language on their website changed to American Proud Design, and now, Hallie, there's no mention of that American made product side of this at all on the website. And moreover, the design of the phone itself changed. It looked like at one point the cameras were going to be arranged in a triangle. The new image on the site now looks like it's in a line, so it's unclear what this phone looks like, if it even exists. We reached out to them, the company. We have received no response, Hallie. marka madaxweyne Trump maadaama hadda maanta uu magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha gaaray waxyaabaha uu kala wada hadli doono ma kamid tahay war taleefanadan dad lacag fara badan ayaan uga qaadanay bal Shiinaha lagu soo sameeyo kadibna Mareykanka ha lagu iibiyo arintaasina waan arki doonaa sida ay noqoto dhinaca kale madaxweyne Trump booqashadiisa waa booqasho bishii hore qorshaysnayd laakiin dagaalka Iran darteed ayaa dib loogu dhigay bishan hadda magaalada Beijing ayuu gaaray ganacsato fara badan oo Elon Musk uu kamid yahay ninka iska leh Apple oo Tim Cook uu kamid yahay ganacsato waaweyn ayaa la socota marka waxyaabo fara badan oo dhinaca anshuuraha iyo dhinaca ganacsiga labada wadan ayaa looga wada hadli doonaa waxaan ognahay Shiinuhu oo wadanka ugu badan ee shidaalka wadanka Iran iibsada Trump shalay mar wax laga weydiiyay arintaasi oo la yiri ma kala hadlaysaa Shiinaha maadaama saaxiib dhow uu Iran leeyahay waxa uu yiri waan isla soo qaadi doonaa laakiin ugama baahni xalka Iran in garab la igu siiyo aniga ayaa ku filan marka waa arintaasina waan arki doonaa halka ay ku dhamaato laakiin hadda wararka soo baxaya waxay sheegayaan in sirdoonka Mareykanku ay ogaadeen in Iran ay haysato inta badan awoodeedii dhinaca gantaalada wargeyska New York Times ayaa waxa uu leeyahay waxaan haynaa cadeyn muujinaysa in Iran ay dib u soo celisay oo ay howlgelisay 30 kamida 33 goobood oo gantaalada ay ka tuureysay oo ku teedsan marinka Hormuz taasi oo qatar ku ah maraakiibta Mareykanka ee dagaalka ay joogta magagaarka marinka Hormuz iyo sidoo kalena maraakiibta shidaalka sida ee marinka Hormuz maraysa sidoo kale waxa warbixintan ay muujinaysaa New York Times ay qoreen in Iran sidoo kale ay haysato ilaa 70% gantaalada gawaarida laga tuurayo waliba kuwa mobilka ah ee gurguura ee meeshii la rabo la geyn karo sidoo kale waxa ay Iran haysataa ku dhawaad 70% inta badan kaydkeedii dhinaca gantaaladana
ayay haysataa marka qiimeynta lagu sameeyey sidaasi ayay muujinaysaa in Iiraan ay inta badanba gantaalada gawaaridii laga tuurayna Mareykanku waa kuwii dhahaya waan burburinay meelihii gantaalada ay ku kaydsanayeen waan burburinay laakiin hadda waxaa la leeyahay 70% gantaaladoodii kaydkana waa ay haystaan gawaaridii laga tuurayna 70% waa ay haystaan 30 kamid ah 33 goobood oo gantaalada ay ka tuurayeen oo Mareykanka Hormuz ku teedsanaana sidoo kale hadda dib ayay u howlgeliyeen waaba diyaarba marka arrintaasina Mareykanka ciidamadiisa ka jooga aan agagaarka Mareykanka Hormuz khatar weyn ayay ku tahay shalay waxa soo baxday in wadanka Pakistan uu gabaad siiyay inta badan diyaaradihii dagaalka ee Iiraan oo ay wadankaasi Pakistan ay fadhiyaan arrintaasi shalay Congress-ku waxay su'aalo weydiiyeen wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth iyo qaar kamid ah taliyaasha ciidamada marka Lindsey Graham waa nin laga soo doorto gobolka South Carolina oo sanadka ku jira Trumpna saaxiib dhow la ah dadka aadka u taageersanaa dagaalkan Iiraan lagu qaadayna ku jiray Lindsey Graham shalay waxa uu yiri haddii ay run tahay in Pakistan ay gabaad siiyeen diyaaradihii militariga ee wadanka Iiraan arrintaasi waxa uu yiri dhaxdhaxaadiyaal ma noqon karaan hadiiba ay ilaalinayaan diyaaradihii militariga ee Iiraan sidaas darteed waxa uu yiri waxaan bala yaabanahay sababtooda hadalladu ay hore ugu socon laayihiin marka Pakistan dhaxdhaxaadiyaal ma noqon karaan waa in laga wareejiyaa dhaxdhaxaadnimada waa inaan wadan kale aan raadsanaa oo na dhaxdhaxaadiya I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. laakiin Trump arrintaasi mar wax laga weydiiyay waxa uu yiri oo ku kalsoonahay Pakistan waa saaxiib dhow isla markaana sida muuqata Trump kalsooni ayuu u muujinayaa laakiin qaar kamid ah xubnaha Trump taageersan oo dagaalkan Iiraan ku taageeray waxay leeyihiin war arrintan suuragal ma ahan waa in laga wareejiyaa dhaxdhaxaadnimada wadankaasi Pakistan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo